madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baabi'iyay xeer lagu aasaasay guddiga adeega garsoorka iyo guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar ku siiyay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya in ay dib u soo dhisto xubnaha golaha adeega garsoorka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay villa Soomaaliya sheegtay in aan loo marin howlgalintooda hanaanka dastuurka iyo xeerarka dalka waafaqsan. war ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in go'aankan uu madaxweynuhu gaaray kadib qaraar ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka laguna sheegay in xubnaha golaha adeega garsoorka iyo xubnaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa aan loo howlgalin si waafaqsan dastuurka iyo sharciga u yaala dalka. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in la baabi'iyay dhammaan wixii go'aano ahaa oo ay gaareen muddadii la howlgeliyay xubnaha golaha adeega garsoorka iyo guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa.